nabad saaxiibayaal waa mar kale iyo barnaamijkii taxanaha inoo ahaa ee wehelka wariyaha tababarka saxaafadda qaybtan shanaad waxa aynu ku soo qaadanaynaa warka waa maxay war taariikhda warka iyo qaybaha kala duwan ee warka waxayna noqon doontaa qayb taxano inoo sii ahaan doonta haddaba waa maxay war baa ugu baahi badan war la helaaba tale la hel warna meel dheer buu ku dhacaa warafna meel dhow war xun sheeg waa ceeb sheeg dhammaan waa orahyo soomaaliyeed oo warka la xiriira waxaadna ogaanaysaa in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad warka aada u xiiseeya labadii qof ee soomaali ah ee kulanta waxay sheekadooda koowaad ku bilaabaan war maxaa la sheegay war ma jiraa maxaa cusub ma la waabariistay maxaa lagu hoyday maxaa lagu hargalay waxay ku tusinaysaa arrintaasi xiisaha warka heerka uu gaarsiisan yahay waxaa dadka qaarkiis markaasi ay dhahaan inuusan warba jirin waa war fiican oo ahayd no news is good news laakiin arrintaasi waa laga daba tegay oo waxaa la yidhi war la-aani waa war xun no news is bad news soomaalidu waxay tidhaahdaa war baa ugu baahi badan sidaan horeyba u sheegnay taasi waa midda keentay subaxdii adigoo weli qaxweynin inaad raadiyaha daarto telefishinka shido joornaalka akhrisato amase internetkaba aad daalacato si aad u ogaatid wixii dhacay intii aad hurday warku noocu doonaba ha ahaado ama mid wanaagsan ama mid xun dadku aad bay u daneeyaan helidiisa iyo weliba raadintiisa shil gaari oo dhacay waa arrin naxdin leh haddana inaad heshid macluumaad ku saabsan shilkaasi waa midaad aada u danaynayso haddii doorasho madaxweyne ay socoto waxaa aada u xiiseynaysaa inaad la socotid halka doorashadu marayso cidda guulaysanaysa iyo cidda guulaysan rabtaba warku marka taariikh fac weyn ayuu leeyahay oo ku siman qarnigii 15aad waqtigaasi waxaa war ahaa wax allaale iyo wixii la maqlo la arko ama la akriyo ilaa iyo haddana wax weyn iskama bedelin arrintaasi oo waa lasii casriyeeyey waxa warka uu yahay qeexidiisana gadaal ayaanu ka arki doonaa dadkii roomaanka waxay u baahnaan jireen inay la socdaan wararka dowladahooda la xiriira iyo weliba xaaladaha kala duwan ay ku jirto iyo go-aamada ay soo saarto dowladdu julius caesar oo ahaa hoggaankii ugu sarreeyey roomaanka waxa uu aad dadkiisa akhbaarta dowladda ku saabsan ku gaarsiin jiray wargeys lagu magacaabi jiray acted warner dhinaca kale qarnigii 9aad dowladda boqortooyooyinkii shiinaha waxay dadka akhbaarta ku gaarsiin jireen looxaan lagu qoray xogta maamulkaasi gaar ahaan go-aamada ay maxkamaddu soo saarto qarnigii 16aad ayaa markaasi yurub laga dareemay dhaqdhaqaaq joornaalada ah iyadoo waqtigaasi wixii ka dambeeyey tallaabo horumar leh uu ku tallaabsaday warku qarnigii 17aad warqadaha lagu qoro warka ayaa aada ugu faafay yurub gaar ahaan xarumaha ganacsiga waxayna xaashiyahaasi looga hadli jiray arrimaha dhaqaalaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa ganacsiga dalka maraykanka oo ka mid ahaa meelihii ugu horreeyey ee saxaafadda casriga ah ay ka hana qaaday ayaa tafatirayaasha wargeysyadu qarnigii 19aad waxay u baahdeen in la helo akhristayaal aada u badan si dhaqaale badan uu ugu soo xiroodo islamarkaasina suuqa guud ay dhaqaalihiisa kor ugu qaadaan wargeysyada magaalooyinka waaweyn markaasi waxaa gacanta ku hayn jiray dadka aqoonta leh amase dabaqadda sare amase leh khibradda saxaafadda haddaba warku waa wax cid walba ay u hamuun qabto warbaahin walba danteeda ugu weyn waa isku aruurinta tabinta iyo isku dubarididda warka gudaha wararka dowladda iyo wararka dibaddaba haddii aad daartid raadiye ama telefishin amase aad akhrisatid wargeys maxay tahay ujeeddada ugu weyn ee aad sidaas u yeelaysid waa inaad war heshid wanaag ama xumaan ku doon ha ahaadee waa arrin adag inaad wargeyskii shalay aad mar kale dib u akhriso oo dib u furto marka laga reebo inaad xaqiijinaysid
war hore amase aad tix raacayso akhbaaraad hore loo qoray. mar walba ujeedkaagu waa helidda war cusub kaasoo aan horey u bixin. waxaa jira hadalhayn caan noqotay oo ka soo yeertay tafaftiraha New York Sun John B. Bolton oo ahayd haddii uu ay qaniino nin maahan war, balse haddii nin uu qaniino ay waa war. taasi macnaheedu maahan in arrintu ay ku saabsan tahay ay iyo qaniinyadiis keliya, balse arrin ka qoto dheer ayaa ku hoos lamaan. in badan baad aragtay qof laga daaweynayo qaniinyo ay. waxaad kaloo aragtay ilmo ay uu qaniinay. waxaaba dhici kartaba inuuba adigu ay ku qaniinay. haddii markaasi idaacadda ama telefishinkaba u baahiyo ay qof qaniinay, dadku waxay leeyihiin horey ayaan u arki jirnay ee saaxiib war cusub la imo. ka waran marka haddii taasi beddelkeeda lagu dhaho nin hebel oo magacaas leh ayaa la xiray kadib markii uu ay u lahaa uu qaniinyo dhegta goostay. markaasi waxaa imaanaya su-aal, talow ninkaasi maxaasi ka ahaa? maxaa uu eyga u qaniinay? muxuuse u dhimay eygu? wax walba oo aan horey loo maqli jirin waa war. warku waxa uu la mid yahay hilib ceeriin. haddii maalmo uu yaallana laga fogaanayo. warka marka la akhrinayo lana fahmo waxaa durbo yaraadaa xiisaha loo qabo, waxaana adkaata in mar kale la akhristo. u fiirso, idaacad ka mid a kuwa magaalada aad joogto ayaa warkii duhurnimada baahisay. qof walba dhegta ayuu taagay. haddii uu shaqo lahaa iyo haddii uu firaaqo lahaaba waxa uu ku xisaabtamayaa dhegaysiga warka duhurnimo. marka warkaasi baxo saacadda xigta, haddii qodobadii warkii hore lagu soo celiyo, waxay u badan tahay in qofku iska damiyo, ka danaysto, amase mawjada uu wareejiyo. warku wuxuu ka mid yahay badeecooyinka ugu caansan uguna xiisaha badan qof walba oo luqad fahmi kara. xilliyadii hore warku wuxuu ahaa mid xiise leh. dadka ayaa isku ahaa raadiyo, wargeys, telefishin, gaar ahaan marka ay isku yimaadaan kulamada amase ay kala war qaadanayaan. haddii laba saaxiib kulmaan, warka ugu horeeya marka ay isdhaafsanayaan ma noqdo arrinta naga dhexaysay see ka yeelnaa. hase ahaatee waxaa hadalka ugu horeeya uu noqonayaa xaalka ka waran, maxaa yeelay waxa la raadinayo waa war cusub. wariyaha shaqada ku cusub wuxuu ogaan karaa xogta runta ah iyo sheekada aan jirin. way cad tahay kala duwanaanshahooda, laakiin waxaa la isku dhex khaldaa labadooda inta badan. ujeeddada warka waa inay dadka wax ogeysiiso, waxna u sheegto. hase ahaatee warka khayaaliga ah amase sheekooyinka khayaaliga ah ee dadka lagu madadaaliyo waa ay ka duwan yihiin. macallimiinta sheekooyinka khayaaliga ah qora waxa ay ku qeexaan inaan sheeko khayaali ah xataa la abuuri karaynin ilaa wax dhacaan oo lagu tusaale qaato mooye. haddii aan ficil jirin sheeka ma jirtaba. waqtigan casriga ah warku wuxuu helay qeexitaano hor leh oo aad u sahlaya fahanka macnaha war. Charles Dana oo ka tirsanaa wargeyska New York Sun sanadihii 1869 ilaa 97 ayaa war ku qeexay shay walba oo xiise geliya bulshaweynta aysan horay u ogeyn. wariyaashu waxay inta badan raacaan talooyin iyo weliba layliyada ay u soo diraan tafaftirayaashooda ama dadka shaqada ay kala dhaxayso. waxaana labada dhinac ka dhexeeya fahan ku saabsan maxaa war ah maxaase ahayn. warku waa xog ka duwan xogaha caadiga ah, taasoo timaada xilli aan la filaynin. waa qeexid midayn karta qeexitaanada faraha badan ee warku leeyahay. aan soo koobno qeexitaanada wararka laga baxshay. ereyga war waxa uu leeyahay macnayaal fara badan oo gaaraya boqolaal. hase haatee qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a 1 war waa dhacdo xilli dhow dhacday sida uu ku qeexay qaamuuska Webster. 2 xog cusub oo qusaysa arrin waqti dhow dhacday sidoo kale waxaa la yiraahdaa war. dhinaca kale ereyga war ee news waxa uu asal ahaan ka yimid new oo ah wax cusub. markaasi wax walba cusub inta badan waxa lagu qeexi karaa war.
war waa wax walba oo aan caadi ahayn ee dhaca. war waa wax walba oo akhristayaashaada, dhegaystayaashaada ama daawadayaashaadu ay u hamuun qabaan inay ogaadaan. waa tahay saaxiibayaal, qaybtii 5aad ee barnaamijka wehelka wariyaha intaasi aynu ku soo gabagabeynaynaa. waa anigoo ah cabduqaadir cabdulaahi faryaamo oo idin leh nabadgelyo iyo qaybaha xiga oo ah warka oo sii socon doona qaybihiisa kala duwan. waad ku mahadsantihiin la socoshada barnaamijka.